maada bacda almowt geerida maxaa ka dambeeya xabaaluhu waad aragtaan dusha waa ka siman yihiin boqoradii iyo madaxweynayaashii dhintay culimadii kuwii akniyada ahaa iyo fuqaradii kuwii wanaagsanaa iyo kuwii xumaa dhammaantood tasaawow jamiican dusha waa kuwaa ka sinaaday waa godka ciidda lagu guray dhagaxanta yaryar dusha laga saaray saasi aad arkaysaan laakiin xagga hoose ayaanay ka sinayn qaarkood natiijada geeridoodu waxay noqotay natiijo wanaagsan oo lagu farxo qubuurtoodu waxay noqotay rawdatu min riyaad aljanna beer ka mida beeraha jannada gogol baa jannada looga keenay neecawdii jannada u soo gelaysoo daaqad baa looga furay qabrigoodii baa janno ah qaarkoodna qubuurtoodu waxay noqotay xufratu min xufari niiraan god ka mida godadka naaraha walciyaadu billaah waa lagu cidhiidhiyey qabrigii waa ku madow yahay albaab baa looga furay naarta kuleelkeediiyo qiiqeedii baa uga soo gelaya gogol naareed buu ku jiifaa imtixaankii qabriga lagu weydiiyey ee malaa'igtii allah u soo diray ay ku weydiiyeen ayuu ku dhacay qofkaasi qofna aqoon uu u lahaa su-aalaha la weydiinayo quri badbaadin mayso aqoon ictiqaad iyo aaminsanaan camal iyo dhaqan taas ayaa qofku uu ku badbaadaya allah wuxuu aayaddan ku sheegay walaalayaal qubuurta dabadeed dadku inay qaybsami doonaan waxay u qaybsami kuwa naarta laga fogeeya kuwaasi dhab ahaan iyagaa guulaystay iyo kuwo naarta ku dhaca oo ku ciqaamo oo ku kadeedma kuwaasina dhab ahaan way khasaareen noloshooda oo dhami mar haddii halkaa ku dhamaatay way khasaartay faman zuxsiha can الnaari waudkhila اljanata faqad faaz ka naar laga fogeeye janno la geliyo geeri dabadeed kaasaa guulaystay maxaa arrinta noocaasa sabab u ah arrinkaasi fadliga ilaah iyo raxmadiisu ku yimi waxaana sabab u ah camalkii saalixa ahaa ee qofka muuminka ee adduunyada intuu joogay uu sameeyey toobadkeenkii toosnaantii inuu naftiisa ka reebuu ka xakameeyey oo uu kala dagaalamay waxaa ilaahay amarkiisa khilaafsan rabbina subxana wa tacaala ka cadhaysiinaya dadka waxaa daga oo ilowsiiya geerida noloshan adduunyo qaar fara badan baa mooda weligoodba halkan inay joogayaan daawashada guryahooda beerahooda gawaadhidooda dukaamadooda goobahooda ganacsi quruxda iyo dhaldhalaalka adduunye ayaa lugooya allah wuxuu yidhi wama alxayaaةu اdunyaa ilaa mataacu اlguruur noloshan adduunya wax kale maaha waa wax yar horta qofka socdaalkaa ee musaafirkaa wax yare degta uu ku qaatay sahayd oo kale weeye waxaas waxaynu ogsoonahay qofka meel fog inaanu gaarhsiinahayn wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur macana yaanay ku dagin sida ilaahay uu yihi falaa taguranakum اlxayaaةu اdunya walaa yaguranakum biاllaahi اlgaruur noloshan adduunyaana idin dagin ka dagista badan oo shaydaan la yidhaahdo xarkaha dadka uu isticmaaliyo dabanada u dhigtana adduunyadani ay ka mid tahay yaanu idin dagin ayuha almuslimuun adduunyadan musaafiriin iyo socdaal baynu ku nahay marka hore waynu ogsoonnahay nebiy llaahi aadam iyo hooyadan xawaa halkay degenaan jira inay ahayd aljanna waxa looga soo saarayna warkiisa waynu haynaa waa macsiya waa khilaaf amar ilaahay subxana wa tacaala ay khilaafeen oo doonistii naftooda ay ka raaceen allah baa markii dambe ka toobad aqbalay lakiin arrintaas waxay sabab noqotay adduunyadan in la keeno xaggii laga yimi baa loo noqonaya qof walibana wuxuu kula noqonayaa waxa halkan inta uu joogo uu tabcado ee uu kasbado ayuu kula noqonaya adduunyadan socdaal inaynu ku nahay waa mid inoo muuqata oo qofku meesha uu socdaalka ku yaha weligiiba ma joogo maalin ayuunbuu ka tagaa wadankiisii rasmigaha buu noqdaa waa adigaa arkaya subax kaste iyo galab kasta iyo habeen kaste qaar inaga mida aynu naqaanay waalidiinteen qaraabadeennii jaarkeennii asxaabteennii ayaa adduunyadan laga sii sidaa naxashkay saaran yihiin dhooliga ama ambalaaska dadka dhintay lagu qaado ayaa lagu sidaa halka la geynayaana waa almaqaabir waa adiga arkay maalin walba xabaale ayaa buuxsamaan waxaa loo ololeeyaa xabaalo kale in la iibiyaa loo ololeeya waa magaalooyin kale ayaa ku hareereysan man sukaanuhaa yaa degan magaalooyinka kale ee magaalo kastoo la deganya hareeraha ka xigiya jihooyinka waxa degan alamwaat aladiina asaabathum musiibaة اlmowt kuwii ay ku dhacday musiibaة اlmowt adduunyadani waxay ka dhigan tahay walaalayaal kaalinta shidaalka ee qofka socdaalka ahi
uu shidaal kaga shubto dabeetana u dhaafo qofka caqliga lema ka suurtowdaa inuu kaalinta shidaalka iska agdegu iska agseexo oo iyada daawashadeeda iyo ka shaqaynteeda uu ku mashquulo oo halkii u socday musaafirka uu ku ahaa uu kaga mashquulo kama suurtowda taas waa ka sahay qaataa shidaal buu kaga shubtaa hore ayuu uga sii socdaa wahaakada almu'minuun adduunyada waxay u joogaan inay ka sahay qaataan watazawaduu faina khayra zaadi taqwa waxa sahay laga dhiganayaana waa alcamalu saalix kaas ayuunbaa yowma alqiyaama qofka anfacaya adduunyadan oo dhami way dhammaanaysaa maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq wax allaaliyo waxa agtiina yaalla u dhammaanaya allah agtiisa waxa yaalla ayuunbaa hadhaaya wataraktum maa khawalnaakum wara'a duhuurikum wax allaaliyo waxaanu idin siinay xagga dambe ayaad kaga timaadeen qofka muslimka ahi waa inuu ku cibro qaato geerida uu garanayo og yahay oo arkayo ee uu maqlaayo xusuusnaanteedana waa inuu farabadiyo nebi maxamed calayh salaatu wasalaam wuxuu uhi sida tirmidi wariyey akiruu min dikri haadimi ladaat farabadiyo xusuusnaanta ka macmacaanka adduunyo jara qofku inuu geerida xusuusnaadaa oo mar walba ay noqoto nusba cayne indhihiisa mid hortaalla raad fara badan bay noloshiisana adduunyo ta aakhiro labadaba ay ku leedahay xataa wakti looma qabanoo lama odhan maalintii intaasoo jeer xusuusnaada waa xusuusnaan joogto ah ayaa la rabaa qofka muslimkaahi geerida inuu xusuusnaado qofku hadduu farabadiyo xusuusnaanta geerida waxay tahay sabab ugu noqonaysaa ila wuxuu xusuusan yahay geeridii inay sugayso qabrigii waa kan iilkii lagu dabooli lahaa waa kan camalkiisiibaa ugu imanaya hadduu wanaagsanaayo hadduu xumaaba waxay markaa sabab u noqonaysaa xumaanta inuu ka toobad keeno an yatuuba ilى اllah kulamaa zallat qadamuhu rajaca ilى اllah mar kastoo simbiriiraxdo xumaan uu ku dhaco waacidkii ama waaniyihii u weynaa ayaa dul taagan oo geeridiia oo xusuusan yahay allah buu toobad keenaya qofku hadduu xusuusan yahay mar walba inuu dhiman doono adduunyadani aakhiro ka mashquulin mayso bal wuxuu hamigiisa u weyni noqonayaa hamu laakhira aakhira ayuu u sahay qaadanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka kuwa u caqliga badani kuwaasi inay yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man akyasu nnaas qaala akharuhum dikra lilmowt wa ashadhum isticdaada lahu dadka yaa u caqli badan oo u fariidsan qofka geerida ugu xusuusnaan badan uguna diyaar garow ulaaئika hum اlakyaas dahabuu bisharafi اdunya wakaraamati اlaakhira kuwaasaa ah kuwii caqliga badnaa iyagaa sharaftii adduunyo iyo maamuuskii aakhiro labadaba dadka uga dheereeyey geeridu waa lagama maarmaan u sahay qaado maanta xaqiiqadeeda waxaa dhadhamiyey oo garanaya kuwa dhintay ee xabaalahaasi ku jira ee iyagu xataa aan ducaysan karin ee inaga ay nala gudboon tahay walaalahooda muslimiina mar haddaynu nahay inaynu u ducayno mar walba oo allah dembi dhaaf iyo raxmad aynu u weydiino nebi maxamed calayh salaatu wasalaam markuu qabri soo maray waxa uu ihi isagoo saxaabadiisii la hadlaaya miyaad garanaysaan qabrigaa qofka ku aasan waxa hebel baa ku aasan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laba ragcadood oo maanta idinka idinla fudud ayuu qofkaasi ka jeclaan lahaa adduunyada oo dhan addunya kulaha laba ragcadood baa ka qaalisan maantana adduunye aada u liidata ayaa laga yaabaa dadka qaarkood laba ragcadood inay uga tagaan ama faralkii ilaahay ku waajibiyey inay ka tagaan iyagoo adduunyada liidata raadinaya xaalkoodu waa sida ilaahay uu yihi bal tu'hiruuna alxayaaةa اdunya wاlaakhiraةu khayr waabqa noloshan adduunyada door bidaysaan aakhiro ayaa idiin wanaag badan aakhiro ayaa tabaaqiga hadhaysa wadunya faaniya adduunyadanina way dhammaanaysa si aynu u xusuusnaano geerida mar walba xabaalaha markaynu tagno ee aas aynu u tagno aynu iska dayno laqwiga iyo sheekada adduunyo aynu ku cibro qaadano abu hurayra wuxuu odhan jiray imduu wanaxnu cala alahar markuu arko qof xagga xabaalaha loo sii wado sii socda anaguna raadkiina aanu ku taagana waanu idinka dambaynaa qofka muslimka xaalkiisu waa inuu saasi noqdo xabaalaha waa in la booqdo waayo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi fazuuruuha fainaha tudakiru alaakhira xabaalaha booqda waayo qofka aakhiro iyo xabaalaha booqashadu xusuusinaysaa qalbigiisuna wuu jilcayaa allah buu toobad keenaya subxana watacaala dib intuu isu xisaabiyo allah baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwo geerida xusuusan oo ku cibro qaata xabaalaha mar walba ay dul marayaan dadkii qusuurta iyo fiilooyinka iyo bangalooyinka iyo fooqyada deganaan jiray maanta
xabaalahaasi ayay degayiin halkaasay ku dambeeyeen qof waliba halkaasi ayuu ku dambayn doonaa guryahaasaa mudan in la dhisto in la qurxiyo in la wanaajisto in loo sahay qaato lagaga mashquulin guryaha laga tegaayo ee cid kale ay u hadhi doonto wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عند